Assalaamu calaykum. Dagaalkii labaad ee adduunka waxaa lagu tiriyay dagaaladii ugu dhiig daadinta badnaa iyo weliba kii ugu baaxadda weynaa ee aadamuhu geysto. Dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka 1919 markii laga adkaaday dalka Jarmalka iyo xulafadiisii, waxaa dhabarka loo saaray dalka Jarmalka khasaarihii ka dhashay dagaalkii koowaad ee adduunka, taasoo lagu ansixiyay heshiiskii Faransaay. arrinkaas oo dadka reer Jarmal uga dhignaa bahdilaad. sanadku markuu ahaa 1920kii, dhaqaalaha dalka Jarmalka oo marayay meeshii abid ugu xubaa. arrinkaas iyo kuwa kale oo la xiriira tuhun laga qabay Yuhuudda ayaa sababtay inay soo ifbaxaan xisbiyo xambaarsan aragtiyo ku salaysan kala sarreyn qowmiyadood, taasoo ay sanadku markuu ahaa 1933kii xisbigii naasiga ahaa ee Jarmalka ee la wareegay taladii dalkaas. xisbigaas oo madax u ahaa Adolf Hitler ayaa ballan ku qaaday inuu dub-habeyn ku samayn doono arrimahaas oo ay ugu horreeyeen in la mideeyo dhammaan shucuubta ku hadasha af Jarmalka. arrinkaas oo u muuqatay saansaan dagaal. 20 sano kadib markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, caalamka oo ku jiray deganaansho aan salkeedu fadhiyin, Adolf Hitler ayaa sanadku markuu ahaa 1935kii waxa uu meesha ka saaray heshiiskii Faransaay. arrinkaasoo dib u bilaabay xurgufihii u dhaxaysay wadamadii xilligaa uu tunka weynaa xagga ciidanka. sanadku markuu ahaa 1938kii, ciidamadii Jarmalka ee la odhan jiray Wehrmacht ayaa gudaha u galay dalka Austria iyagoo garab ka helay xisbigii naasiga ahaa qaybtiisa dalka Austria. arrinkaas oo u noqday dhiirigelin Hitler si uu ugu fudo wadamada dhaca galbeedka Yurub ee ay ku nool yihiin dadka ku hadla af Jarmalka sida Czechoslovakia, Poland. kadib markii ciidamada Jarmalku qabsadeen wadanka Lithuania, arrinkaas oo walaac geliyay wadankii la oran jiray midowga Sofiyeeti. khilaafkaas oo ay labada wadan ku xaliyeen is-afgarad in la qabsado wadanka Poland iyo in aanay labada wadani aysan midba midka kale ku gardaroon. 1939kii waxaa labada wadani ay bilaabeen kala qaybsiga wadanka Poland, arrinkaas oo ku qasbay wadamadii xulafada ah ee boqortooyada Ingiriiska iyo Faransiisku inay si cad ugu dhawaaqaan dagaal ka dhan ah wadanka Jarmalka. arrinkaas oo si rasmi ah u bilaabay dagaalkii labaad ee adduunka. sanadku markuu ahaa 1940kii, Jarmalka oo haystay isku haleyn in aan wax colaad ah uga imanayn dhinaca bari ama wadankii la oran jiray midowgii Sofiyeeti kadib heshiiskii dhexmaray labada wadan. isla sanadka ciidankii Jarmalku waxay qabsadeen wadamada dhaca bartamaha Yurub sida Luxembourg, Belgium iyo wadanka Holland iyo weliba wadanka Norway oo ahaa meeshii ugu badneed ee ay uga iman jirtay macdanta birta. xeeladii ay adeegsanayeen ciidanka Jarmalka oo la jiray Blitzkrieg, taasoo u sahashay inay ku qabsadaan wadamo dhowr ah waqti aad u yar. xeeladaas oo ahayd in aad loo isticmaalo ciidanka cirka lana bartilmaameedsado ciidamada kale ee kasoo horjeeda. xeeladaas ayaa natiijadeedii durba ka muuqatay jihada hore ee furimaha dagaalka ee wadamada xulafada San Francisco. xeeladaas oo u sahashay in la qabsado magaalada Paris. sidoo kale Jarmalku wuxuu qabsaday wadamada Balkanka sida wadamadii la isku oran Yugoslavia. sanadku markuu ahaa 1941kii, ciidamadii Jarmalku waxay si kedis ah u weerareen midowgii Sofiyeeti, taasoo ahayd in ay jebiyeen heshiiskii ay galeen. howlgalkaas oo lagu tilmaami jiray howlgalkii ciidan ee abid ugu weynaa, in ay ciidanka Jarmalku hareereeyeen magaalada Leningrad, taasoo sabab u noqotay in ku dhintaan in ka badan 1 milyan oo qof. gumaadkaas oo inta ugu badan geysteen guutada SS, taasoo u gaar ahayd gumaadka Yuhuudda ee ku noolaa dhammaan wadamadii ay qabsadeen ciidankaas. weerarkii uu Jarmalka ku qaaday midowgii Sofiyeeti ayaa sabab u noqday inuu Joseph Stalin garab istaago ciidamadii xulafada ahaa ee uu hogaaminayay Mareykanku. sanadku markuu ahaa 1944kii, ciidamadii isbahaysigu waxay kasoo degeen xeebta Normandy ee dalka Faransiiska. dhinaca kale midowgii Sofiyeeti wuxuu kusoo qaaday dagaal jihada kale ah, taasoo ku qasabtay inuu Jarmalku isku dayo inuu ka dagaalamo laba jihood isagoo wax caawinaad ka helay wadamadii ay xulafada ahaayeen, taasoo sabab u noqotay inay gacanta u galaan dhammaan wadamadii uu hore Jarmalku u qabsaday, wadamadii uu Mareykanku hogaaminayay. taariikhdu markay ahayd 3 Abriil 1945kii, Adolf Hitler ayaa naftiisa ku khaarijiyay meeshii uu ku dhuuman jiray inta aanay soo gaarin ciidamadii casaa ee guduudnaa ee midowgii Sofiyeeti. magaalada Paris 8 maalin kadib waxaa isdhiibay dowladii Jarmalka. dagaalkii labaad ee adduunku wuxuu socday 6 sano, waxaa ku dhintay in ka badan 60 milyan oo qof. haddaba daawada ma is leedahay iyadoo khasaaraha intaa lee ka dhashay dagaalka, adduunku ma geli doona dagaalkii saddexaad ee adduunka?
dabadaawad haddii aad halkii soo gaadhay waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan si aad ugu xidhnaatay channelka fadlan subscribe noo saar lana wadaag saaxiibada mahadsanid